السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan la yeelanay ardaygii ugu sareeyay kulliyadda sharciyada islaamka ee jaamacadda Hargeysa ardaydii shalay toole ka qalin jabisay dufcaddii tobnaad ee shalay toole ka qalin jabisay ardaygan oo magaciisu yahay Cabdalle Cabdiraxmaan Jaamac Cabdalle Cabdiyare. Cabdalle waxaad ka warantaa xilligaad dhalatay iyo halkii aad ku dhalatay. bismillaahi raxmaani raxiim. marka hore waxaan salaamayaa baxdan wargeyskan Golis News warbaahintiisa gaarka ah. marka labaad waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliland guud ahaan iyo ehelkayga. haddii aan su-aasha ka jawaabo waxay noqonaysaa insha Allah waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa 1987. Cabdalle Jaamac waxbarashadaadii malcaamadda iyo dugsiga hoose dhexe halkeed ku soo qaadatay? dugsiga hoose dhexe waxa la qoray malcaamadda waxa la qoray madrasada Awyonis ee xaafadda New Hargeysa. dugsiga hoosena waxaan ku qaatay dugsiga Sheekh Yuusuf Al-Kawnin isaguna ku yaala xaafadda New Hargeysa. dugsigaagii sare halkeed ku qaadatay isaga? dugsigii sarena waxaan ku qaatay magaalada Hargeysa lafteeda dugsiga sare Gacan Libaax. waxaan kale isagana dugsiga sare aan ka baxay dugsigii sare Cabdilaahi Muuse Abu Hurayra School. hal mar baan labada ka wada qalin jabiyay 2008kii. Cabdalle goormaad bilowday waxbarashadan diinta ee jaamacadda Hargeysa aad ka qalin jabisay imika? waxbarashadan diiniga ah ee maanta ka qalin jabiyay Ilaahay suuro geliyay waxaan bilaabay markii aan ku jiray secondary form 2. maalintan ayaan masaajidada ka bilaabay inaan wax ka barto ilaa intii aan secondary ku jiray waxbarashada masaajidaan ka waday. markii aan secondary dhameeyayna waxaan ii suuro gashay inaan jaamacadda Hargeysa ka bilaabo digriigii ugu horreeyay ee waxbarashada diinta islaamka. Cabdalle markii aad bilaabaysay digriigan maadaama aad ahayd nin ka soo baxay dugsiyada maadiga ee Soomaaliland waxyaabaha aad ku dooratay inaad barato sharciyada iyo diinta islaamka maxaa oran kartaa? waxaan oran karaa horta anoo markii hore aad iyo aad fiilkan aad u xiiseynay oo aad u jeclaa inaan noqdo qof diinta islaamka bartay. waxa kale oo arkay dadka ama dhalinyarada soo baxaysa oo badana ka leexanay inay diinta islaamka iyo jaamacaddii islaamiga ahayd ka leexanayo maadiga iyo businesska iyo accounting iyo management lowga medicineka engineerinka waxyaabaha aad u buuxinaya. markaa waxaan doortay inaan ka doonaado oo barashada diinta islaamka anigu aan barto si aan dadka jaahilnimada uga saaro oo Ilaahay ugu xidho anaan Ilaahay raali geliyo. Cabdalle waxaad ka warantaa waxyaabihii xilligii aad bilaabaysay waxbarashadan caqabadihii ka hor yimid bilaabitaankeedii? caqabadihii horta way badnaayeen. qofku markuu cilmiga baranay waxa looga baahan yahay inuu waqti badan bixiyo, inuu maal bixiyo iyo inuu waqti bixiyo naftiisana bixiyo. marka caqabadaha ugu badan waxa ahaayeen xagga dhaqaalaha waan iska fiicnaa waan helay waan shaqaysanayay. xagga cilmigana hadda markii hore masaajidada ayaan ku soo yara dhigtay oo wax badan baa i baxsanaa. laakiin caqabadaha ugu badan iga horreeyay waxa waqtigu aad iigu yaraa oon dib badan kala kulmay waayo gelika hore waan shaqaynayay gelika dambena wax baan baranayay. marka caqabadaha ugu badan iga horreeyay waxaan oran karaa waqtigu bay ahaayeen waqtigu igu yaraa. korosyada ama cilmiyada aad ku baratay digriigaagan sharciyada islaamka maxaa aad nooga sheegtay? waxaan baranay general islamic si guud baan diinta islaamka iyo luqadda carabida wax uga baranay sida cilmiga fiqiga tawxiidka tafsiirka luqadahana saddexda qaybood ee kala duwan balaaqada iyo sarfiga iyo naxwaha iyo cilmiga la yiraahdo al-adab al-islami wal-adab al-jaahili oo ah suugaantii hore carabta iyo suugaantii dambe islaamku dejiyay. waxaan kaloo aad u baranay cilmigan tarbiyada la xiriira sidoo qofku macallin noqon lahaa sida cilmi nafsiga sida tarbiyadii sida duruqu tadriis cilmi la yiraahdo macallinku qaabka wax u dhigayo iyo waxaan kaloo baranay sida wax loo baaro manahij bahs cilmi cilmiga la yiraahdo. akhiirana buugaag baan diyaarnay oo qornay markaan qalin jabinay saas baan Ilaahay nagu suuro geliyay. Cabdalle waxaad ka warantaa xilligaa waxbarashada ku guda jirteen maadaama oo jaamacaddu ay tahay jaamacad ballaaran ardaydiina baranaysa sharciyada islaamkuna ay ahayd arday 100% ka yar ardaydan kale ee baranaysa cilmiyada maadiga. sideebaa dareenkiinu ahaa ama sideebaa ardayda kale ee culumta kale baranaysa idin soo dhaweyn jireen? ardaydan kale ee culumta kale baranaysa waa arday aad iyo aad mutadayiniin ah in diinta islaamka aad wax uga fahansan oo ku dhex jira aad bay noo ixtiraami jireen wayna dhiiri gelin jireen. waxay noo sheegi jireen inay kulliyadii ugu fiicneed annagu aan dhigano annagana taas ay isdiilan noo ahayd oo waan ku sii dhiiran jirnay. iyagana waxaan ku waqtiga dacwadda iyo isku keenka iyo isku xidhka intaa waan ka dhex wadnay waan ka dhex shaqeynay.
cabdalle ugu dambeyntii waxaad tahay ardaygii ku guulaystay kaalinta koowaad u galay ardaydii baranaysay shareecada islaamka kuliyaddii ugu qaalisnayd ee jaamacadda hargeysa ka qalin jebisa marka sideeba dareenkaagu yahay guusha aad ka gaadhay xagga waxbarashada diiniga wallahi dareenkaygu aad buu fiican yahay oo aad baan ugu faraxsanay guushaan gaadhay waana guul aan doonaya inaan xaqiijiyo ilaahay suuro geliyey waxaanan ogahay taas inay tahay tii koowaad qaar kale oo fara badan oon ku hamiyey inaan gaari doono insha allah waan rajeynay cabdalle imika waxbarashada diinigii waxay imika hadda taagan tahay heer degree ma ku qorshaysan tahay inaad hore uga sii socoto maxaad sii doonaysaa inaad gaadhsiiso waxaan doonayaa halkan waa iska bilow inaan hore uga sii socdo oon kusii daro master program masterta oon ka bilaabo dalka suudaan insha allahu sanadkan gudihiisa gaar ahaan fiqiga islaamiga iyo usuulu fiqiga sidaanaan uga sii wado sare uga sii kaco ilaa PhD aan ka gaadhayo sanadaha soo socda insha allah ugu dambeyntii maxaad nooga sheegi kartaa dadkii kaa caawiyey inaad waxbarashadan ku guulaysato ama aad heerka soo gaadho waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa labadayda waalid aabahay cabdi jaamac siciid iyo hooyaday saade maxamed salaan waxaan si gaara ugu sii mahadnaqayaa walaaladay gaar ahaan siciid cabdi jaamac oo aad ii dhiirigelin jiray garab taagnaa iyo walaalkay xidig cabdi jaamac iyo walaaladay guud ahaanba iyo asxaabtayda oon cilmigooda diyaarinaynay oon ka wada shaqaynaynay oon wada akhriyaynay oo iyaguna aad noo dhiirigelin jiray oon halkan kusoo gaadhnay keligii anigu halkan maan soo gaadhin intaa dadkaas badan baa ka qayb qaatay kaasina wuxuu ahaa ardaygii kaalinta koobaad ka galay kulliyadda shareecada islaamka ee jaamacadda hargeysa dufcaddii 10aad ee maalintii shalay ahayd ka qalin jebiyey magaalada hargeysa jaamacadda hargeysa